آيات القرآن الكريم كان كوب لابد هنا شيخ محمد شكري فليتفضل إن شاء الله مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. فريتانكي أنا بلابنا إن شاء الله وحن كسر دوينا إمام الشيخ محمد نور الشيخ حسين رالي إنه نافره وكلمة دي إن شاء الله فريتانكي نسوي جزاكم الله خير. أما بعد قوشان واحد جاي بيش الشيخ خالوين أيضا أمر كهش يدلب أغيمد صومالي وين الشيخ خالوين قوش أسوي أقبل شيء أنت كران كذا هاد قوش دق هاد وحوري لوغا فكرة مهينن وحي أرمهاس فاهفاهintooda إن شاء الله دبا كجل دونا رك بدنا وجوه أرنتاس سيقيح دونه شغال جوجش way aqbashay way idinku soo dhaweynay mar labaad soo dhawaada idin leedahay gogosha waxay ku saabsan tahay war la qabaxiisa ma leh waa ogtihiin baarlamaanka Soomaaliya shalay inuu baarlamaan noqday wixii ka horeeyay shalay inuu curtay maxay ahayd sharciyada loo doortay iyo qaanuunka loo doortay shalay inay curatay muxuu ahay jawaabteedii ku habooneed in halkaan ka bixino sidaas oo shirka ku saabsan yahay tilaabta labaad waa toosin iyo maxay ahayd talo quman ay ku aadan maxay ahayd Soomaali ku socoto meel walba ay joogto wixii nagu soo aadan tilaaba laga qaadan lahaa sidaas daraadeed waxaan caaw ku faraxsanahay in halkaan isugu imaano annagoo qiiraysan ku qiiraysan Soomaaliya maanta meeshii loo dhaqaaqi lahaa markii shalay tilaabtaas dhacday wixii ka dambeeyay meeshii loo annagoo ka tala qaadanayno halkaan waxaa ku kulansan Soomaalida koonfur degto oo waxba aan ka maqnaynin hadalkii kuma sii dheeraanayay wixii dhibka halkaan la iskugu yimid waa la ogyahay waxba inaan ka sii sheeg ma rabo Soomaaliya dhul kala ma laha magac kala ma laha haddii alla ku roon yahay xoolo kala ma laha waa dad walaalo isla wada dhashay waxaa loo baahan yahay marka islaam ah waxaa loo baahan yahay marka ugu hore diinta islaamka waxa ay farayso dadka markay walaalo yihiin islaam yihiin waxaa la rabaa islaamka shucuurtiisa in la muujiyo maxay ay dadka isla dhasho walaalaha marka ugu horeysa diinta waxay u sheegaysaa inay qaataan oo ah in lees xushmeeyo oo lees sharfo oo lees soo dhaweeyo oo aan muxuu ahay lees caynin lees dilin lees dhicin lees xaqirin sidaas daraadeed halkaan waxaa ku soo dhaweynayaa muxuu ahay intii muxuu ahay qumana ahayd oo arintaas u soo xeedato halkaan ugu timid waxaan leeyahay muxuu ahay jazakumullahu khair muxuu ahay ilaahay ha idin sharfo waxaa la idinka rabaa xigmadda waxaa la yidhi caqli kan adiga kugu jiro ma ahane waa kan walaalka ku jiro annaga muxuu ahay beesha gaar ahaan markaan kusoo celiyay sheekhaal waxay u taagneed qiyamkeeda wuxuu ahaa Soomaali inay midayso islaamka inay midayso waxa isdagaalay inay heshiisiiso dadka isdagaala inay heshiisiiso ijaasay u qabtay dadkana way aqbali jireen dagaalka Soomaaliya markuu bilowday maxay ila tahay 25 sano iyo meelaha soo maraya waxay ila tahay maanta irjicu ila aslihi inay naqatay loo laabtay in wixii qaladaad la galay lagu saxo ab wada wuxuu wada jiray wiilku amwaalir in abkeena wuxuu wada jiray Soomaaliya ay u naqato ayagana aan siina kaalintoodii sheekhalna kaalinteeda ay muxuu ahaay oo nabadeynta ay qaadato gogoshi sheekhal maantay waa tii labaad halkaan ay fidinayso ixtiraamka intii Soomaaliyeed ee nagu siisana waa ka aqbalnay gogoshana waa wadaynaa muxuu ahaay ayagana ballan qaadkii iyo muxuu ahaay amarka ay nagu siiyeen waa qaadanay wayna socotaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan soo dhaweynaa hadda maxamed dooro sidaa la socotaan waa nin hogaamiye siyaasadeed ah oo in badan ku mashquulsanaa sidii looga hortagi lahaa dulmiga jira marka aad iyo aad ugu mahadinaynaa juhudda xooga badan ee uu arintan uu ka geystay waana mahadsan insha Allah guushay aw dagaalmayna xaq darrada aw dagaalmayna burcadka Kenyaatiga wata ee wali dalka sii jooga nin aan Soomaaliya ku dhalanin nin aan Soomaaliya shukran nin aan Soomaaliya ku dhalan
oo u dhaarsan hadday hol noo bilaabatay laakiin baarlamaanka taageeradiisa mooshinkiisa xaqa ay sameeyeen caada qaatayaasha ag fadhiyo Jubaland wax la yiraahdo ma jirto baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay legitimate parliament ayaa tirtiray sida awgeed walaalaheen dhulkana degan deegaanka shaqaal mar labaad waxay aad u faraxsan tahay hawsha aan qabanay inaan ugu dhiirigelisaan horna u socono hadda dagaal ma dhahay aniga laakiin hawl culus ah jirta ogaada waa runta in la isku sheego hawl culus sababtoo ah Puntland iyo mudugba waxay yiraahdeen baash muxuu ahaa Jubaland waxay yiraahdeen Soomaaliya ka goosan horna waa u sheegnay Soomaaliya u taalna mar labaadka waxa sharaf u celinayna amba mahad u celinayna British Foreign Affairs oo warqadeena hoos ka xariiqan rayn ah baarlamaanka burburintiisa raali ka noqday og marka xuquuq kasta u geynay marka waa maasantiin waxaan leeyahay guuleysta la reerka waa hayaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh macnihii xadgudubyadii dhacay isagama sheekaynayn waa la wada soconnaa wixii xaqdarro lagu dhisana saana u dambaynayso wixii xaqdarro lagu dhiso ma taagnaan karaan marka waxaan u haysanaa inay arrimaha ay ku soo noqdeen meeshii la rabay inay marka horeba yaalaan waxaan ku soo dhaweynayaa mudnaantan uu leeyahay adeerkan rugcadaaga geedi raage waxaanu mahad weyn u celinayaa beesha halkan markii hore nagu casuntay haddana midaan quruxda badan la sameeyay waa mahad celinayaa waxaan kaloo mahad celinayaa bulshada Soomaaliyeed ee halkan isugu timid rag iyo dumarba siyaasadda haddii la wada galo rag wada galo ragna waa ku guuleystaa ragna guuldara loo tiriyaa hadda dadka siyaasadda ku jira Soomaaliyeed ama maamul goboleed ha ahaadaano ama dawladda dhexe ha ahaadeen maamul goboleed waxaa ka soo dhex baxay Shariif Sheekh Aadan ka soo dhex baxay Shariif Sheekh Aadan ka soo dhex baxay oo dadkii ay qusayday inay ka hadlaan ayna ka hadleen ee asagu u dooday dadka meeshii degan waa leenahay Shariif aad u mahadsan tahay aad iyo aad waad u mahadsan tahay maamul goboleedka adigana aad idin soo dhaweynayna waxaa kaloo jira dawladda Soomaaliyeed inay baarlamaan leedahay markastana group siyaasadeed wax badbaadiya marka in Soomaali wada joogto oo ayu wixii qaldan laga diido wixii toosana laga aqbalo waa wax xaq waay baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan ugu tahniyeenaynaa go'aanka ay ka qaateen wixii dhibaatahayo dhacay oo bulshada Soomaaliyeed oo Jubaland degan iyo wixii la degan ayu diideen inay aqbaleen ayaguna yiraan ay sidaas kale u aqbaleen waxaan kaloo haddana idin xusuusinayaa baarlamaanka ka horeeyay baarlamaanka ku meel gaarka ahay markii Kenya ay dhulka Soomaaliyeed ay badda ay qaadatay inuu asaguna diiday ayagana mahadaan u celinaynaa ayagana mahadaan u celinaynaa dawladda Soomaaliyeed rag wasiir ka ayaa ka soo horjeeda siyaasadda baarlamaanka ma aqbali karno in dad sheeganayo gabineedka oo dawladda inay ka soo horjeestaan wixii baarlamaanku sameeyay inay ka soo horjeestaan inay nin baarlamaanka kamida asna ka soo horjeesto asagana mid la aqbali kara ma ahan haddii wood looga adkaaday inuu fikradiisa baarlamaanka ka dhex dhiibto ayuu leeyahay maana inuu suuqa meediha u gudbiyo ma laha cabdi cali dhexe
waxaan leenahay baarlamaanku shaqadiisii uu gubtay wax annaga uu noo sameeyey ma leh wax gaara ma jiraan shaqadiisii uu gubtay waa ugu mahad celinaynaa qofku hadduu shaqada leeyahay isagu uu guto uu garto ruuxeeda maxad uu leeyahay waxaan intaa soo haray waxaan ka soo horjeesanay maamulku sheegii dumay ee Kismaayo joogay waxaan rabnaa inaan u sheegno maamulada kalena inaan u digno macnihiisa ma aha qabiilku raacmayna dan gaarana kama lihin Sheekh Shariif wuxuu Sheekh Aadan Shariif Xasan wuu dhiman yahay wallahi ilaa jilib aan ugu fadhinaa haddii sidoo kale uu sameeyo meeshan kala maraan la marayna inaana kaari kow waxaa soo haray qolada Cadaado kuwaasaa ka horeeya qolada Cadaado waxaa taas macnaheedu yahay inaana qabiil u jeedin oo aana cid u jeedin waxaan sugaynaa inta ku dhawaaqaan qolada Cadaado intaas ugu fadhinaa kaliya qolada muxuu ahaa Shariif Aadanna Shariif Xasan isagana sidoo kale waa ugu fadhinaa macnaheedu taas cadaaladaan u qayminayna waxaan aan ka dabcinayaa barasharka asaarteen luga dheer iyo fartaan luga dheer isagoo aadmaro horta wuxuu ku quustay goonka weero laalaada fartaan isagii tolkii meesha la mariyay isaguna waa raacay markaan waa saxan yahan leh hadduu isbadbaadiyay arrintaas ayada wax cudurdaara ku siinaya labadoodaba wax doonana ku hadla horena waa u sheegnay noon maxaabiisa wey waxaa soo haray Kenya Axmed Madoobe kama hadli karo wuxuuna sheegtaa gidaarka meesha lagu godoominayo ummadda Soomaaliyeed oo aad aan uga xumaaday gabar meel dhawad qaylinaysa dhibta lagu hayo arrintaas ayada waa ka soo horjeednaa mana yeelayno darbiga ummadda iyada lagu ciqaabayo Soomaalina waa ugu yeeraynaa dawladda Soomaaliyeed waxa ka qabataan leenahay baarlamaanku waxa ka hadlaan leenahay Soomaaliya isku timaadaan leenahay waxa kale inta wehliya Kenya waxaan u sheegaynaa annagu Soomaalina aan nahay arsaxageeno waliba inta isku sii jeednaa roonna laakiin waa u soo wada jeesanayna hanaga dayso godoominta iyo darbiga iyo dumarka iyo caruurta ay ka dhawaajinaysa maalin kasta oo ay muxuu laaluush ka qaadanayso oo ay ku tagrifanayso oo gudaha Soomaaliya ay soo galayso dadka islaamka waa isku mowqif waana isku diin islaamnimaduna waa wax afka laga sheego way ka weyn tahay qof kasta oo islaamna waxa loo baahan inuu isku aragti noqdo wixii xun in isku aragti ka noqono wixii fiican isku aragti inaan ka noqono midda kale dawladeena hadii malaag ay sameeyso waa wanaag dhaxli doonto wanaag haday xumaan sameeysan waa xumaan ay dhaxli doonto nin wax u qaban karaana ma jirto ilaa ay Soomaali ayadoo wada fadhiisato oo runta ka wada hadasho ninka dhaawaa tagayana mowqif hore uu gaaray oo soo cadeeyay moogi inuu tagi karin uu og yahay haduu tagi karna mar uu tagi lahaa nina waa tagaa kuma tagan nina waa imaana kuma yimaadee dadkan waa iswada leeyahay intay runta ka hadlaan waxay Soomaali rabto geeyta la isla fadhiisto go'aanka runtaana hala helo nin ila caaya ama dawlad ila caayana meesha uma imaan waxaan u nimid inaan Soomaali gaarsiino hambalyo wanaaga uu sameeyay baarlamaanka Soomaaliyeed oo u dhaxeeya Soomaali weyn saaka hub iyo rag iyo ciidan waa isla isku tag iyo mowqif aan ku midownaa naga maqan haddii Ilaahay intaas tawfiiqdana waafajiyo oo Soomaali ducaysatana wax badan oo xarada ka maqan soo xaroonaya wax badan oo naga qaribana helaynaa dadku ay isku duceeyaan qalbigana isku furaan hana la isgacan galiyo geed hoostiisa Soomaaliya oo fadhiisato Soomaalida wili abtiga dad kala go'ana maaha dad gobol kala ma shirkeena horena waa ku dhaanay tanna waa ku dhaayna waligeena waa dhii doona Soomaalida waa geed ku maran waana wiil iyo abtigiis marka Soomaaliya ay wixii ku dana ajnabi kuumadan ah iyo ninba maalin boorso ka qaatay lacag meel ku cuntaa la rabaaye dabay guriga ka dhisatay ka ay ku dhisatay kuma seexanayside nin walba dalkiisa u noqday Soomaaliya dalkiina u tashada Soomaalidan jirta waxa kaliya ay isku darsatay waa baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed waa baarlamaan matalayo Ras Kamboni ilaa iyo Sayla sidoo u dhisay marka laga hadlo muxuu ku dhisan yahay sidoo yahay waa gooni laakiin waa meesha kaliya ee dadku ay wax isku darsadeen haddii la yiraahdo lama dhageysanayo marka maxaa dhageysanaa ma Kenya dhageysanaa iyo wadamada dariska macnaheedu xagee loo socdaa waqti marka waa fahmi la ah waa qaatacana markay leeyihiin wax u jeedaan macnaheedu waa dad aan fahmayn wax ka hadlayaan laftooda marka iyaga laftooda waxay u baahan yihiin in wax la baro oo ay fahmaan wadanka waxa uu yahay mudnaanta waxa ay tahay arrimahaas oo dhan marka جزاكم الله خيرا وحاو يرى كورنيل عبد الصبول
waxaan u maleynayaa baadida waa la helay xaggee laga helay waa hadal badi baadida waa la helay waxaa laga helay baarlamaanka baarlamaanka wuxuu xaqiijiyey marka inay ka dagaalamaan dulmiga inay u heliyaan cadaaladda inta ka soo horjeeda marka waxba kuma fadhida laakiin waxay noo sheegaysaa waxa ay duntooda yihiin inaysan garan weli waxa qaran yahay waxaan isleeyahay mar haddii arrintu baarlamaan la keenay baarlamaankan uu yahay baarlamaan sharciya uu yahay baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ka dhaxeeya waxa isku darsatay oo keliyaba oo maanta ka dhaxeeyo saddex arrin mar waa muslimnimada marna waa Soomaalinimada markay soo dhaafto maanta waxa naga dhaxeeya baarlamaanka hadduu waxna kala yiraahdo cidii ku qanci weysa marka iyada meel wax ku og iyaday u taala waxayna ila tahay inay asiibeen midda saxda ah ayna dulmi asiibin anagana dulmi aan ugu sacbinayn caawo taas inaysan muran ka taagnayn nimanka hadda la yiri wixiina waxba kama jiraan waxa aan ka dacwoonayna bay ahayd waxa marka nasiib daraa oo wax la qaadan karaa oo waxaan la maqli karnaa inayran waa go'ayna ha go'aan xagee aadeen waa yahay deegaanka ma qaadmayo dadka ma la'aanayo keymano kuma darmi karaan Indian Ocean may qaadan galeen marka intaas oo dhan suurtagal ma waa isla ognahay wax marka la yaab leh iska hadal wali waxaan joognaa dadka qaar waxa ku quflan wixii la dhihi jiray waadloo way soo dhaaftay waadloo way soo dhaaftay nina qabiil dagaal wax waa uga qaadan waayay deegaan qabiil wax waa dagaal waa uga qaadan waayay waxa kale wax la iskaga qaadi karo waxa way in cadaalad lagu dhaqmo haddii cadaalad lagu dhaqmo dadku way is ogolaanaya bulshada helaysa oo caafimaad qabto ganacsi baad helaysa dadkii inay is dhaxmaraan helaysa adiga magacaad leedahay haddii aad dulmi sameeyay ilaahay waa kula xisaabtamaya oo sida shakhsi kasta loola xisaabtamayo waxa soo dhawaa la soconaa dad hadda waxa moog maahin waxba nalooma sheegayo waxay la tahay in badan nagu filan waa soo joogna qaarkan dhalinyaro intayba ku dhashan ama iyagoo yar yimaadeen wayba la yaabsan waxaan ama filanka meesho ka socdo ma garanayaan marka waxaa leeyahay aniga Soomaali ha noolaato Soomaali ha noolaato saartiro ilaahow sacabadan u taag samahiya wanaagan sacabada u horsadee sare joogga igu sii sahalna igu soo dhiib Soomaali nabadeed si saamax daacada sare joogga igu sii sahalna igu soo dhiib adiga suldaan hoose kale adduunka saacada iyo maalmaad sare samawaadka taagto dhulka sidan ka yaasho geedaha ka saarto buuraha dul saarto bilaadan siiso dayxii cadeeda daa'imo ku cadeehde Soomaali nabadeed si saamax daacada sare joogga igu sii sahalna igu soo dhiib sixir qaba ha naga baxo dad kale u socda ha naga baxo Soomaali ha midowdo muslimku ha guuleystiin Allah subhanahu wa ta'ala wa mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweynaa mudane Cabdiraxmaan Macallin oo ah siyaasi caana oo aan wada naqaano waxaan mahadcelinayaa beesha Sheekhaal cazuntay dhigtay shirkan kulanka ah quruxda badan dad muhiim ah isugu yimaadeen ayaan mahadcelinayaa shirkan muhiimadiisa ugu weyn waxaan filayaa inuu yahay in la taageero baarlamaanka Soomaaliyeed ee dowladda dalka Soomaaliya ee ka keenay motion haddana fuliyay go'aan aan isleeyahay 70% in ka badan oo ah Soomaali weyn meel kasta oo ka tirsan baarlamaanka xubin kasta oo kaga jirtay 70% in ka badan ayaa la sheegay inay go'aankaasi gaareen inay waxba kama jiraan ku tilmaamaan kana diraan baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u taqaano Juba taageerayaasha maamulkaasna ay u yaqaaneen Jubaland anigana aan u aqaano Jubaland marka aan leeyahay Jubaland Jufo waa garanaysan Jufo kadib markii xuquuqdii dadka deegaanka koox gaar ah ay qaateen
oo inta kale la xaqiray ayaan waxaan ku magacaabay Jufo Land. runtii halkaasi waxaa la yiraahdaa muxuu ahay xaqa haddii afka laga qabto feeraha ayuu ka dilaacaa. barlamaankii Soomaaliyeed oo beelaha Soomaaliyeed ka kooban yihiin mar haddii ay diideen waxaad garan kartaan halgankii aan u soo joognay ugu yaraan 3 sano ama 2 sano ka badan in maanta aad arkaysaan waxaan sheegi jirnay ummadda inay garatay ayaan filayaa. waxaad ogtihiin mas'uuliyiin Soomaaliyeed oo waxaan u soo joogay dhahaya Kismaayo ma lagu xukumayo xamar. macnaheedu markaasi waxay tahay haddii aan xamar laga xukumayn xagee laga xukumaya waa Nairobi. dadkii ayagas mas'uuliyiintii saas lahaa waxaan maqli jiray geeridii galbeed laga sheegay guntaada ka day ayaa hadda deegaankoodii la yiri waxa la dhigayaa derbi algeliya oo wiil iyo abihiis iyo wiil iyo hooyadiis laba walaalo ah ayaa la dhigayaa ayaga hadda qaylinaya. marka waxaan ku sheegayaa dadkan waa walaalo beel Soomaaliyeed oo wada xun ma jirto beel Soomaaliyeed oo wada fiican ma jirto. marka waxa idin fiican leeyahay dadka meesha jooga inay walaal ka dhigtaan dadka deegaanka ay soo dhaweeyaan cadaaladna ay u heeliyaan. waa maasanteen afayeenka Soomaalida koonfur galbeed Mr. Elias weligay ma taageerin motion baarlamaan uu keenay laakiin kan waa taageersana maxay tahay sababta aan ku taageeri waayay marka saacid la riday marka Cabduul la riday maxay tahay kan waxaan ku taageerayo in madaxtooyada danaheeda kaliya danaha Soomaaliya loo burburiyo laba shakhsi Xasan Sheekh iyo Wasaare isku dhacay in motion loo keenay ma taageeray muwaadinimadana kama mid aha laakiin kan waxaan ku taageeray ma ahan motion ka yimid madaxtooyo ma ahan motion ka yimid xafiiska baarlamaanka ma ahan motion ka yimid xafiiska ra'iisul wasaaraha ee waa motion ka yimid Soomaali weyn baarlamaanka Soomaaliya ninkii la yiraahdo wuxuu yiri okay maalan wali fali waa bafale waa in faatakum wixii dhacay way dhaceen dacwo idin raacan mayna hadda wixii hadda aad sixi kartiin saxa waarimaysidee war ha ka haro waa tagaysiin 2016 amba Nicholas Kay idin kala diro amba maamulada hadda la dhisaayo inay idin shiraan ha idin fasaxaano waa tagaysiin laakiin inta idin harsan wax macquul ah Soomaaliya ku qanci kartaa oo khaladaadka aad gasheen aan ku halmaami karnaa sameeya oo tan ay ka mid tahay khayr Allah siiyo magac bixin badan un baa halkan ka maqlaya Jufland Jufabel wax un baa maqlaya laakiin anigu waxaan jeclahay magac bixinteena inaan idin sheego dhinacan wariyaanka ahay oo saxaafadan waa ka shaqeeya waxa waaye Soomaalinimada ma ahan adoo ay kugu weyntaa haddana haddii lagu tumanayo xaqaaga lagu tumanayo inaad iska aamusnaataa ma حديث رسولك وحوها عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما أصحابتي waxay dhaheen hadii laga gardarinayo waa bagaranayo garab aan siinay hadda isaga dulmiyaha sideen ugu gargaarna wuxuu yiri rasuulka gacantiisa qabo oo haduu dad dulminayo ka joogna war ka joog waa qalbinta ka joog marka waxay tahay dadkeenu halkan waxaan u imaanay dadkeenu masaakiinta nabadda jecel oo beelaha Soomaaliyeed oo ay waliba ugu horeeyaan beesha Sheekhaal oo nabadda jecel iyo beesha Digli Mirifle iyo beelaha Digli Mirifle iyo beelaha kale walaalaheena nala degahay inaan difaacno annagiya wax garad ah annagiya aqoon-yahana annagiya yani nin maanta aqoon-yahan ku sheeganaya oo $100 kaliya dantiisa umadeed yani ku iibsanaya ka anagu naga mid ah waxa laga hadlay fartaag oo waxa laga hadlay ninka kale oo madaxweyne ku-xigeenka oo lugu dheeray anigu waxaan ka hadlayaa Sheekh Cabdi Maxamed waa afayeenka baarlamaanka Bobland aan u bixiyo Bobland waxa maxay yeelay dhulka kan Kenya boobtay ma ahan Jufo Soomaaliyeed ma boob dhulkan waxa loo wada dhulka kan Kenya amba aan hadda aan ku qanacno amyaan ku qancin dhulka meel loo wada Sheekh Cabdi Maxamed waa nin Digli Mirifle
وانين مرفلا وانين ينتهر ولا يقان معروف وا لكن وانين جاجيسن جاجدو اي او جيسي ان يعني دانتا امديسا او اسكا halmaamo oo canshuurta yar dekada laga qaadayo caloosha jaabka loogu shubo la yiraahdo sheekh adigu way anficaysaa yacam yes sheekh Ahmed yes inuu yiraahdo intaas ku qanca kaliya Ahmed waxaan ugu baaqay halkii aan ku soo gabagabeynaya Ahmedow shanta Soomaaliyeed aad wax ku gaaraysaa horumar aad ku gaaraysaa oo jiritaankaagu uu ku jiraya laakiin ku gaari maysto horumar hello jigjiga hello Kismaayo hello garow ku gaari maysto ma wallahi ku gaari maysto waxaan ku soo gabagabeynayaa oo aan leenahay hello Soomaali weyn wabillahi tawfiiq waxaan ku soo dhaweynaa Suldaan Maxamed Carab insha Allah waxaan aad iyo aad aan u taageersanahay baarlamaankii Soomaaliyeed ee federaalka ah ee arkay dulmigii ka socday jubbooyinka iyo wixii lagu abuuray ee beebeenta ahaa baarlamaankii Soomaaliyeed ee isha ku arkay ee arintaas burburiyay dulmiga ah iyagana waa taageersanahay waana soo dhaweynaynaa baarlamaankii Soomaaliyeed wuu hadlay wuxuu yiri dulmka joojiya annagana waa hadlaynaa waxaan oranaynaa dulmka joojiya dulma shaqaynayo Soomaali waa Soomaali dhulka Allah leh inta wixii ka soo haray dawladda Soomaaliyeed baa iskala dhulka oo mas'uulka ah waxaan aad iyo aad uga xumahay rag maamulka Jubba oo markii baarlamaankii Soomaaliyeed ay dulmkii diideen ee yiraahdeen ka joogada dulmka ee gacmaha ka qabteen inay isla markiiba yiraahdaan waxaan ka goosanaynaa dawladda Soomaaliyeed waxaan doonayaa inaan u sheego gado jubbada dhexe jubbada hoose magacyadaas ayadoo leh iyo nimanka maanta maamulka haya ay yimaadeen dalka uma aysan bixinin iyagu Soomaali baa u bixisay shacabkii Soomaaliyeed oo degan ayaa u bixiyay ayagoo magacaas la yiraahday ka tagayaan waxna kama qaban karaan magacaan Soomaali baa u bixisay shacabka Soomaaliyeed baa ula baxday gobolka Gado gobolka Jubbada hoose gobolka Jubbada dhexe Soomaali shacabkii degan ayaa ula baxay inay yiraahdaan waa ka go'aynaane ونعسين ما يكون تاعي واحد نسميه كرين أفكار هذا لو على دورة ما ينتهي قادان أي درب يقول الشيء أكيد يمي حاجة كمرنا يعني وما يعني سياس درادي وحارنت أسيادة هكذا نقدانو ينسى نقول لكل وحش غير ما أفهم هذا هكذا استغفر الله استرانيان له waxaan kaloo rabaa inaan ogeysiiyo oo aan u sheego oo aan xusuusiyo baarlamaanka Soomaaliyeed shanta beelood ee Soomaaliya ayuu ka kooban yahay ma aha beel wax ay leedahay ma aha 132 ayaa u codaysay in la duro ama xamar lagu riixo ama meel kale lagu riixane aadna casimeeyota haddii ay noqoto innaga iyo haddii ay baarlamaan noqoto nimanka waxa lagala hadlay waxa weeye war dulumka joojiya war waxa kan Soomaali baa iskale war dhulka dhiga war la isugu yimaado war qof walba waxa adigu aad leedahay gacanta lagu saaro oo dulumka jooji iyo ma joojinayo inta meesha taalo waa intaas ee cid haba yaraatee ama wax loo dhibayo ama xaqeedii laga joojinayo ama laga dugsiin ma jirto annagu halkan waxa u fadhinaa dulum diid baana من نهين ضد ظلم دون هيو إذا عن ظلم أورمنا ما جرتو وحوي الصومالي وحيكتم من مال دير جيت دير بيكتم بربر بيكتم وحي بربري وح بربري وحالو توسيكر عدالة لكن وح بربري بربر بتوسيكره سيدا درادين سيدا درادين جوجيا ظلمك إذا عن ظلم وأقولنا هنا مجرد نفتينا وما أقولين قلنا وأقولنا إلا ظلمنا ما أقولين
ragga walaalahay ah ee meeshaa jooga ee dulumka joojiyii markii la yidhi cara ay u geysteen waa goosanaynaa taa waa doqonnimo Soomaali baa leh cid ilaahay abuurtay oo wax kala gooy kartaa meel geey kartana ma jirto timirtoona dab loo waa intaas haddii aan ka gudbo waxaan doonayaa in yar inaan dul istaago maamulka Jubba waxaa ku jira nin reeraha yaga ku jira waan ka warwareegnaa laakiin wuu naga warwareegi lahaa waa dul istaagay caawa Cabdulqaadir waxa weeye Cabdulqaadir lugu dheere waxa weeye meeshaas markuu tagay wuxuu la tagay shandad asigu wato dhulkii iyo dadkii sheekhaale boorsiisa ku jiraan macquul ma wuxuu dhulkii sheekhaaleed iyo dadkii iyo macal xoolihii arigii boorsadaan bay ku jiray ulihiisii buu ku yirin ula tagay taas wax shaqaynay maaha isagayna ma oran war kiliga dad dhan kama socotid waxaad yeelaysaa dadkii meeyay ummadda masiirkeeda aawe midna ma dhihin haye buu yiri boorsadii ma dhigay wax yar daan dib ugu noqdo dhaqanka Soomaaliya waxa weeye haddii ninku kugu yimaado gabar nin kaliya soconaya hadduu kugu soo doonto gabar waxa la yiraahdaa war ma tuugba masato laaba tahay baa la yiraahdaa horta waxaan adigu xumahay Sheekh Axmedoobe inuu Cabdulqaadir keligii dhulkii Soomaaliyeed oo shaqaalo ay lahayd iyo dadkii Soomaaliyeed keligii inuu keligii ka dhageysto horta aad iyo aan uga xumahay waxaan kale uga xumahay waxaan ka xumahay waxa lagu maqlaa war baarlamaanka tolo meeqo ka dhigay 25 miyuu ahaa wax alla wuxuu ku yiri wax alla wixii dumar ah oo UN kan ku qancino beeshii qalad baa la sii dumarka iska soo wareeji buu yiri waa arrin yaab la weeyay waxa kale oo cajiib ah cidii hawshan wuxuu leeyahay waxay ka yimaadeen mudug waxay ka yimaadeen hiiraan war mudug baan ka nimid hiiraan baan ka nimid kismaayo kuma ana dhalan ina ku dhalan ma doonayno laakiin dadka iyaga degan Sheekh Aldan ma kala laha meel bay degan tahay gaalka ay degan tahay xardheer ay degan tahay markay degan tahay meel bay dunida bay degan tahay Soomaali waa qabiil weey annagu waxaan u doon u qeylno dadka meesha degan xaq darrada lagu sameeyay ayaan ka dhiriyay moogay kismaayo ina ku dhashan ma doonay ina ku dhalan ma doonay anigu waxaa kaloo idin sheegayaa maalintii baraka mala gaadho ee arrintu xumaatana waad garanaysaan inta ka dagaalamaysa iyo lafaha meesha daadan meesha ka yimaadeen waad garanaysaan isu sheegi mayno horta Cabdulqaadir Fariinsan u sheegayaa waxaan kaloo ugu darayaa yar lahaa waan ku badiyay waxaan kaloo ugu darayaa haddii qofka bini'aadamka la shaqeynayso waxa lagu yiraahdaa maalin qura waxa la yiraahdaa war sida adigu aad doonaysid sida adigu ay kula tahay aniga ila ma aha ayaa maalin qura la yiraahdaa hal maalin ma yiraahdo wuxuu dhigi sidii gulwaash wuxuu leeyahay sidoo ii faray sidoo ii yeelay sidoo u dhafaray madaxweynuhu sidoo yiri sidoo ii sheegay sidoo yiri sidoo uu tilmaamay waa gulwada waa goorma horta waxa soo arrimo ayaa waxa uu in baan ka waran waa dul istaagay waxaan jeclaan lahaa marka inuu garto inuu nin baawr sheerin uu yahay oo qabiil ka soo jeedo oo dal iyo degaan uu leeyahay oo liidnimada iska daayo oo ragga hamidii kala taas u meesha intaas baan leeyahay hadalka waan ku badiyay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddana waxaan ku soo dhaweynayaa afhayeenka rasmiga ah ee maamulka koonfur galbeed ugaas cali xasan cusmaan waxaan aad ugu mahadcelinayaa gogosha wanaagsan ee quruxda badan la soo dhigay waxaan mar labaad idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane marwooyin intaas kadib arrimahan annaga hadda ka hor annagoo cabdiraxmaan iyo 2011 kan ka hadlayno waagii waxaan odagaasi
waa horaan waxaan ka hadlaynay markii la sharciyeynayay Addis Ababa la geenayay waxaan oo dhan wax ka hadalnay cad inay waxaan wax ka khaldan yihiin marka haddii baarlamaanka maanta go-aankaas uu gaaray waxaan leenahay waa naga soo daahday laakiin talyaaniga wuxuu yidhaha non è mai tardi lama daahin hadduu naga soo daahay haddaan maaragtay u hambalyeynaynaa waanu ku taageeraynaa go-aankaas culus ayuu gaaray waana waajib hore looga baahnaa maxaa jira 275 xubnood waxay masalayaan ummadda Soomaaliyeed ayagaa sharci dejinta ah oo nidaamkii laga rabaa inay badbaadiyaan dalkan iyo dadkan taasaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa taariikhda ayadaa isqorta taariikhda waxa loo qorano waa cibro weey waxaan rabaa wax yar dardaaran inaan bixiyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeya sharci dejinta war waajibkiina maanta gudateen dhamaystira oo waxaad ku dhamaystirtaan wixii meeshaas lagu maamuli lahaa hoggaanka inay dowladda inta u qabato ummadan u kala dabqaado waxay ku leedahay ma aragtay taakuleen iyo waardiin ay ku leedahay inay taakuleysay waardiisi dadkii gobolada u dhashan intii la isugu keeno si fiican intii loo heshiisiyo si cadaaladna wax u qaybsadaan shalay koonfur galbeed 3 gobol 6 gobol ay ku doodaysa waxa laga carray waxyaanaha baa ka mid ah marka haddii Soomaaliyeed haddii dib u heshiinayso 6 la isku celinayeen farxad kale ahaan leh international community waxaan kula dardaarmaynaa ayada haddii dhinac naga maamusho dhaqaale iyo wax walba nagu taakuleysay samafalkii wax walba inay ayadana go-aankaas baarlamaanka nala qaadato maxaa jira ayadaa waxay tiri dowladdan Soomaaliya maanta ka dhisan ku meel gaar way ka baxday waa dowlad aan ictiraafsanahay hadday run ka tahay dowladdaas ictiraafsan yihiin go-aankaas baarlamaanka la qaataan waxaan kaloo u soo jeedinaynaa Amazon nafsi shay sidaas oo kale hadday leeyihiin nabad baan idin horseedaynaa waa idin badbaadinaynaa waa idin ilaalinaynaa waxay ummadaas Soomaaliyeed ogosha ay heshiis ku tahay hanala qaadano sida international community ah la dardaaran taas waa taas reer Jubbaland qofku waa bini aadan waa khaldami kara waa turan karaa waxaan leenahay tooba inta tirahan Soomaali u soo noqdo wargooshi waa kan annagana naga tagine meel la saar hadhaan ayagan markuu bini aadanku waa khaldamay war waa khaldana walaalayaal hal hade hana tuurine Soomaali annagana nahay bal meel dhigay hayrahan Soomaaliyeed markaas ayada u talinaysa waxaan u dhiibayaa insha Allah mudane Axmed Warsame maamulka Puntland la yiraahdo war anagu ummadda kama nibcin ummadda waa wada rabnaa dadku waa dadka yagi laakiin qofku markuu xumaan sameeyana xumaantiisan ku tilmaamayna markuu wanaag sameeyana wanaag baan ku tilmaamayna xumaanta ay sameeyeen waxa kamid ah ummadii Soomaaliyeed iyo baarlamaankii Soomaaliyeed ee Soomaaliya iyo ayaga iyo annagaba namatalay go'aankii ay gaareen bay beeniyeen waxay yiraahdeen Jubbaland baan ku raacnay oo waxa weeyaan qalad bay dawladdu gashay waa qalad ay galahayaan oo 4 saac ay kula jiraan lugaha wanaagoodii iyo qaladkoodii keebaa badan marka inay iswaansadaan aad bay horta u fiicnaan lahayd waxa ay soo haray ninka la yiraahdo madaxweyne ku xigeenka reer Gadood waxa la yiri nin hooyadii ka guuray sadohdii uma nagaanayo ninka la yiraahdo fartaag marxaan meesha uu dhigay waa wada ogna oo qabiilna iyaga u xiga xabad buu ku laayay wuu baabaashay warkii uu Kismaayo ka saaray waa la ogaa dhalinyaradoodii wuxuu dhigay meeshii luglow ayuu dhoobay ma u malaynaysan inuu Soomaali kale inta asxaan u falay yiraahdo waxbaan sameynaya huwa ma jawaabto marka waxa weeyaan annagu qabaa'ilka uu ka soo jeedo waa qabaa'il sharaf badan waa qabaa'il aad u wanaagsan waa qabaa'il Soomaalinimada aan aad uga dugsanna weey qabiilka uu ka soo jeedo laakiin fartaag inuu san ahayn nin Soomaaliya oo Soomaali u danaynaya waa muuqataa meesha wuxuu la goosanayana saqayan gadana ma goosan karo Kismaayana ma goosan karo maxay tahay Kismaayo waxay ku kacdo Puntland waxay u taageerayso anagu ugu aamusanahay dhibaatada Puntland u muuqatay Kismaayo maxay tahay oo ummadda kale u muuqanay waa dulmi iyo qabiil waxa weeyaan qofka xishoonaya qofkaan xishoonayn ba horta ka adag
sideedaba haddii qofku xishoodo midaan xishoon haddii alla kugu sallado wuu kaa adkaanayaa haddii ilaahay kugu sallado midaan xishoonay waan xishoonaynaa waxaan ka xishoonaynaa inaan kala jarno oo kala qufno oo kala jiidno ummaddan Soomaaliyeed oo ilaahay wada dhaliyay oo isku dadka ka dhigay baan ka xishoonaynaa siyaasad laakiin wax waa ku raadsan karaa dawladdan qalqaalsan karaa muxuu ahay qabiilka xaqiisa ka soo wareegi karaa jeegaan ku raadsan karaa laakiin wax laga xishoodaa jira waxaan rabo haddaanan helin wax walba waa ka kac sida asagu wax u rabaa wax loo rabaa xukunka uu doonayaa la doonayaa ummadda Soomaaliyeed waxay ku fiican tahay wada joog ummadda Soomaaliyeed waxay ku fiican tahay inay wax wada dhisato ummadda Soomaaliyeed kuma fiicna inay kala go'go'do kuma wanaagsana haddii ay taas jecel yihiin oo doonayaan qabiil inay wax u dhistaana walaayaal intana kala saartaan qabiil aan wax yaga u dhisano qoys iskaga dhisano jubooyinka markii go'aanka laga gaaray baarlamaanka go'aan gaaray waxay tiri waa goosanaya horta aan isweydiino mid isweydiiya telefishinada iyo markay ka hadlayaan waxay yiraahdaan madaxweynaha Jubbaland madaxweyne Soomaaliya hal buu leeyahay madaxweynaha la ilaa Soomaaliya waa Sheekh Xasan Maxamuud madaxweyne kale ma jiro waa maamul goboleed madaxweyne maaha madaxweyne dawlad baa goosan kartay maamul goboleed ma goosan karo waa maamul goboleed say u goosanayaan ma goosan karaan be nidaam ay ku goostaan ma jiro Jubbaland Puntland baa waxay tiraadeen hore waa goosanaynaa waa loo qoslay war maxay ku goosan hagee goosanayaan waa maamule dawlad miyaa markay goosanayaan waxay dawladda jirtaa goosan karta laakiin dawlad maahan ayagu waa maamulo goboleed sideedana federaalka anigu waxaan ka jeclaa horta in lagu magacaabo autonomo gobollada in laga dhigo autonomo federaalka laga joojiyo waa autonomo micnaheedu waxa waaye waa maamul goboleed waaye maamulka gobolka sameynsanaya laakiin waa maamul hoos yimaada dawladda dhexe hoos yimaada oo dawladdana waana hoos yimaadana waa run federaalka saas hadda loola jeedaa federaalka hadda sheegaya waa autonomo waxaa loola jeedaa inay dawladda dhexe hoos yimaadaan kana dambeeyaan amarka ka qaataan marka ma goosan karaa horta talada ku darsada in wax goosan kara aysan jirin taas waa rasmi wax goosan kara ma jiraan midda labaad waxaa halkaan aan sugu nimid oo xaqiiqadii ah inaan hambalyo u jeedino golaha dhexe golaha baarlamaanka oo gartay xilkooda inay gutaan waajibaadkoodii guteen xilkoodii guteen waxay arkeen khaladaadka meesha ka socda Axmed Madoobe waradaan waxa idin sheego Axmed Madoobe yaa doortay baarlamaanka doortay madaxweyne doortay yaa doortay baarlamaanka ma doortay wax doortay ma jiraan asagana teemada loo qabtana waxay u egtahay bisha Agoosto ay u egtahay Agoosto hadoo dhaco yaa dooranaya cidna asaa baxay talada ku darsaday أول برلمان دورت مجرين برلمان دورت أول مجرين أول واحد دورت مجرين أساس مقعبي هذا أنا بحايا أساس كيس بحايا ورتاس بكل صون هذا برلمان كصوماليا حتى برلمان وحلو يري إن أي قامة أي جويان لقاطو قف والباب بنا هذا برلمان أيا وح جوي وطن كان يوكي عن جوجنا برلمان كهدو خلّه وقان جوي لقاهم ده بخلّه قان كيسالو راعة marka baarlamaan miinis wuxuu u fadhiyaa dadweynaha Soomaaliyeed oo dhan meel walba ilaa ilaas asaar ilaa ilaas Cambodia baarlamaanka Soomaaliya ayaa xukumo oo hadalkiisa in la maqlo waa lagu qasban yahay marka waxaan leeyahay ilaahay idinkiisa waxaan rajaynayaa oo ilaahay ka baryayaa in ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba Soomaaliya nahay ummad Soomaaliyeed nahay insha Allah ilaahay idinkiisa waxaan rajaynayaa inay si farxad leh arrinta ku dhamaato صدق صلاة إن شاء الله. باش الشيخ خالد أنا الشيخ يالبابا وقانا ودك دين تودن بين وهين إن كان حكم كاودي بنينا إن شاء الله. marka kasoo gudbo taas waxa weeye xaalad damaanta ay ku sugan tahay Soomaaliya orta baarlamaanku shaqadii ugu weynayd ee uu maanta maartay ummadda Soomaaliyeed u baahnayd ayuu qabtay waa u hambalyeynayna shaqaday qabteen waana ku taageeraynaa waliba waxaan raacinaynaa in ay beesha caalamka ee waxaan wadwada in si toos ah loola fariisto oo loo sheego qaraarka baarlamaanku inuu yahay qaraar ummadda Soomaaliyeed matala oo Soomaaliya oo dhan matala taas waa muhiim qodobka labaad ee raba inaan ka hadlo waxa weeye wadanka Soomaaliya cadaalad darrada ugu weyn ee ka jirta waxa weeye nidaamka awood qaybsiga dawladda oo u baahan in la saxo sababtu waxa weeye waxa la abuse gareeyaa
darajada sare ee prime ministerka ama madaxweynaha ama wasiirada waaweyn in lagu taageero meel maamul magaalo dhexdeeda aan xitaa ka shaqaynin in lagu abuse gareeyo ummadii oo dhan in beesha caalamka lagaga soo dhaadhiciyo in dowlad tahay oo hub aan Soomaaliya dowladii federaalka ahayd aan la siinin looga soo dhameeyo wadamada Carabta waxaan u aragnaa inay offense ku tahay waana muhiim madaxweynaha iyo baarlamaankuba inay ku baraarugaan arinta madaxda sare ee dowladda qayb weyn bay ka yihiin mu'aamaradaha ka socda Jubba ama Kismaayo waxaa kaloo rabaa inaan si gooniyo u sheego waxaa jira shirkado Nairobi degan oo arrinkan lacag badan ku bixiya in ummadda Soomaaliyeed ay dulmanaato in yaroo tuuga aana kontraagya laga saxiixdo badda Kismaayo ku beegan ilaa laga gaadho xuduudka Raaskambooni inta ay Soomaaliya leedahay shaqa ka socota gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ee UK Nadiifo waxaa caawa farxad noo ah in ay gogosha labaad ay noo dhigeen beesha shaqaaleed ee isu keentay Soomaalida degta Jubbaland iyo Koonfur Galbeed South West baarlamaanka federaalkana waa ku taageersanahay codkii quruxda badna ay ku taageereen inay mooshinkaas ku ansixiyaan ee maamulka Jubba laga keenay ee Axmed Madoobe waa taageersanahay waana soo dhaweynaynaa beesha shaqaaleedna waana u mahad celinaya mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay gogasha saddexaadna aan isugu imaano anagoo wadana Puntland iyo Soomaalida kala qaatuma state Somaliland dhamaan anagoo wadna inaan isu wada imaan doono beesha shaqaaleed waa beel xalaal ah waa beel ka soo jeeda beelweyntayni aan naqaanay waxaan leenahay beesha shaqaaleed ay isu keenaa Soomaali weyn gogasheedii maadaama maanta aad dhigteen gogashii Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waxaan rajaynaynaa in maamulka qaatumo iyo maamulka Puntland aad keeni doontaan kulligeen Soomaaliya nahay aan gacmaha isqabsan doono oo magaci Soomaaliyeed oo halkaas ka askumi doono sidii waqtigii Israel iyo USB xisbiyada waqooyiga iyo koonfurta waa markii labaad oo wax caalami oo sameeynayo markii Kenya ay tirbadan wareegay Soomaaliya way ka hor yimaadeen haddana wax weyn bay sameeyeen aad baan ugu mahad celinaynaa aad barbar jasi jiro laga sheegay jir laakiin hadda waxaan leenahay baarlamaan jiro uu noqday raali baan ka nahay sidoo dhan dhamaanteen dhinaca kale haddaan eego waxaa la yiraahdaa federaalka aniga ku wararsannahay Soomaal haddaan nahay federaal miyaan bas waa qabiil muxuu ahaa qabiil federaal la yiraahdo waxa la magaalada gaalkacay hal kala gooyo hal loo qaybiyo laba gobol wargo maxaa la federaalka laba gobol waxa ka badan baa la yiri waxa loo kala gooy gaalkacay oo waligeed mudug iyo la dhahay jari gobolka la yiraahdo galgaduud gaalkacay ka tirsan maxamed siyaad barraa qaybi gaalkacay laba loo qaybiyo hal loo kala qaybiyo qabiilha loo kala qaybiyo marka maamul qabiilad waaya waxa maamul goboleed ma aha marka waxa horta Soomaaliya ka fikiraan oo laga hadlo waa loo baahay midda kale Kismaayo haddaan ku soo qaado muxuu layn lama yiraahdo Kismaayo dadka joogo dadka u dhashay ma aha ninka hore u sheegay hadda la sheegaya dadka u dhashay ma nin iska socdo yimid waay oo Kenya soo raacay meesha xoog ku qabsaday dadkii dhulka waa joogaan nimanka la shaqeeyo hadda ninka la magacaabay oo kamid yahay dadkii dhulka u dhashay way oo meesha la hay way waxaa la sii qabiilka sax ximan baa la sii hal qabiil todoba konton ila xamiyood bay qaateen Soomaali hadii cadaad loo qaybiyo shanta qabiilood qabiil kasta wuxuu helayaa shanta beelood qabiil kasta wuxuu helayaa 15 xamiyood buu helayaa 15 qayb ama meesha doojo faraha laga qaadi lahay arrin jirta maaha ma la yeelay Soomaali biyeeleyso arrintan meel fiican baa maraysa waxaan loo bilaabay baarlamaankeena sameey dadkeena qaylna arrintan waan wadaynaa in hadal ku ekaana meel kasta oo Soomaali arrinteeda ay joogto warqadana geeyna waayo si loo dhamaan dad dhamaanteen in laga qayb gala sida uu kala faradhu dhuumna sida uu kala shaqeyn dhaqan waa in meel kasta geey Yurub iyo Ameerika la qaybi wax Soomaali waa tuuqa Yurub iyo Ameerika way qabiil ka xoog badan ma jiro yuka soo wada kacay waxa yuka meesha keenay arrintan asku tagna gacanta as qabsano inda duulku meehna cid alla dagaalsanaha ma laakiin cadaalad darada la dagaalsanaha yeelina meeyno hore ma hadan yeelina meeyno dagaalna ma rabno haddii nala diido nala qasbana yeelina qasab lagu qabsan karo waana mahadsantiin 100% aad baad ku mahad hadal waa dhamaadeen 100% kulmiya aad u mahadsan yahay haddana waxaan u dhiibaa Axmed Shire waxaan u mahad celinayaa ilaahaygi Soomaalida naga dhigay muslimka naga dhigay dad ehela oo isku yimaad oo dan ka wada hadla naga dhigay
quruxda iyo karaamada na siiyey haddana ay ka suurto gashay gogol xiriirtii Soomaaliyeed ee beesha Sheekh Khalid ay dhigto nasiib ugu yimid inay xiriirtii tahay ama gooshii ugu fiicneyd ee Soomaaliyeed waxa lagu garan karaa way adag tahay ama ma jirtaan oranayaa dad Soomaaliyeed oo inta isku yimaada meel walba ku xardhay calanka Soomaaliya oo aan calan kale ku lamaansaneyn golaha fulinta waxaan oranayaa waxa horta wax rabaa inaan saxo oo aan hoosta ka xariiqo waxa codeeyay waa qarankii ee qabiil ma codayn waxa laga codeeyayna ma ahan qabiil ee waa qarankii waa in saa loo fooyay qabiil looma hiilin qabiil lagama codayn ee baarlamaankii iyo magacii Soomaaliya ayaa qalad jira saxay cid la diiday ma jirto cid la neceb yahay ma jirto cid aan qaranka wax ku lahayn ma jirto cid xumaan ma jirto qalad la tirsaday ayaa cid aan u dooranay inay sharciga noo hayso oo qaladka naga saxdo ay maanta saxday waxaan ugu hambalyeynaa tubti toosneed baa qaateen qaladaadka jira ee soo dhici jiray sida hoggaanka u hayo waan idinku taageersanahay Soomaalida iyo wadaniyada inta rabtaa golaha fulinta dawladda waxaan leeyahay ee uu ra'iisul wasaaraha ka yahay Umar Cabdirashiid waxa qaranka iyo sharciga iyo baarlamaanka Soomaaliya gaareen taageero iyo barigantaal iyo gobonnimo idinka mudan yahay ee yaa mugdi iyo madmadow la gelin si ay arrintu u rabinin oo ay isu u noqonin mid laga faa'iideysto cadawguna u taageerta madaxtooyada waxaan leeyahay oo madaxweynaha oranaya raka horeeyay ayaa dantooda gaarka sharaf iyo karaamo ay kursigan ku lahaayeen waxay uga tageen ayoo ku karaamala oo ku xoolala oo ku magacala ayoo xeeriyay dangaara waxaad ku timid nasiib kuma aad imaan qabiil oo looga qabiil kuma keenin lacagi kuma keenin jabhadi kuma keenin oo dagaal kuma aad qabsan ilaahay baa ku gartay waxaan ku leeyahay sharafti aadan Cabdulla Cusmaan uga tag oo ihsanin ha ihsanin maamul wax kugu leeshiyo ku yahay 16 ku sii celinayna ha ihsanin dangaara ha ihsanin waxaad eexisaa ilaahay awlku keenana haddana waa jooga ee ummadda Soomaaliyeed cadaaladda ku hogaami oo federaalka ku hogaami oo nidaamka iyo u hoggaansan baarlamaankana sharafta u soo hooyay hormud ugu noqo adaa qaranka madaxiisa dawladda Kenya waxaan leeyahay ee aynu dariska nahay qabiil looma jajuubi karo waxaad ogaataa oo nu idiin sheegayna wakiiladiinu waxay ku dhex milmeen beelaha Soomaalida ee beelnimada u dirirsan ee adinka idima matalaan danihiina kama shaqeynayaan ee balsaxa ee magaca Soomaalida wata dib waxa idinku filan hubka aad keenteen waa midka jaamacadaha la idinkaga burburiyay waa midka xaduudka la idinkaga burburiyay sababtoo ah nimanka meesha ku haystaan ayaa awalba idin la dagaalsanaa dad kale idin la dagaalsaneen waxaan leenahay yaa madaqada la baabiinin yaa dalka la baabiinin yaa qabiil loo afduubin ciidamadiinu haddii ay cadow iyo al-shabaab la dirirayaan dadkan waa soo dhaweynayaan dawladda dariska annagu colaad uma hayno idima xumaynayno laakiin ma yeelayno inaad ku dhex milantaan beelo Soomaaliyeed oo dara gaara kala leh oo isriixaya waxaa tiin dawladda darisnimada la xushmeeyo iyo sidaan u nahay dad isxilqaama هذا كم تشري كرنو إنه إنه ماله والبا وحن الله كيري أو تذكرين إنه دينه هذا إنه وحن دينه أسكت إنه أو شخالي هو جانك وقبا إنه وحن وحفي عن أو صبار سكوت بعده لا كانوا سي وحن أي سباس سوقلين waxaan ku soo gabagabeynayaa anoo ku hadlayo magaca galmudug anoo ku hadlayo magaca ximan iyo xeeb anoo ku hadlayo magaca cadaado anoo ku hadlayo magaca gobolada dhexe anoo ku hadlayo magaca mudug iyo galgaduud waxaynu taageersanahay waxa baarlamaanka ku tiirsaday waxaynu taageersanahay goosha waxaynu taageersanahay Soomaalidu ha guuleysato ha israacdo ha midowdo adiguna ha baxo wabillahi tawfiiq Fadlan Noor بولبرد waxaan leenahay annaga baarlamaanka Soomaaliya sharciga waa inuu qof walba ka sareeyo waxaad ogtiin dawladda Umar Cabdirashiid wasiiro beelahoodii keensadeen oo niman wax yaqaana oo sharciga ku adag oo qualified ah inay diideen baarlamaanka Soomaaliya dib loo celiyay waa la bedelay waa la ogolaaday marka baarlamaanka Jubbaland hadii la diiday waa inay sharciga u hoggaansamaan sharciga waa inuu qof walba ka sareeyaa
baarlamaanka soomaaliyana waxay u dhaarteen ay kitaab gacanta u saareen inay ummadda soomaaliyeed samata bixiyaan inayna hal beel u eexanin inay qabiil ku shaqaynin qabiil iyo qaran isma qaban karaan sheekh maxamed shukri inta kale ee dabada ka sii dar waxa weeye inaan taageerno baarlamaanka arrintii uu qabtay iyo wixii uu sameeyay ee hawl iyo wanaag ahayd oo ay ku sii wadaan meelaha kale ee dhibaatada badan ka jirto ee dadku ay aad iyo aad foolxumadu uga socoto wax walba oo dalka ka jirana iyagu ay sharci u noqdaan ayna ka cabsanin nin meel ka hadlay iyo nin yidhaa anaa hebel ah ayna ka cabsanin sharciga isu taagaan haddayna sharciga isu taageen dadka Soomaaliyeed inay u sheegaan inay yidhahaan waxba waan qaban kari weyne dadka la hal la doorto taasa yaa muhiima haweeye galmudug waxaan aad iyo aad ugu hambaliyeynayaa baarlamaanka Soomaaliyeed oo awal hore la oran jiray waa caad qaatayaal iyo laaluush bay qaataan iyo waxbay mooshimeeyaan iyo inaysan ahayn sifaha lagu tilmaamay ee qalad ay sixi jireen maadaama ay arkeen maantay dadka caad qaatayaasha oo iyagoo koob yar ku leh miiskaas oo kale ku buuxsaday baarlamaankii oo jawaan ku gurtay sidii galeydii shamuureydii ay bixin jireen qaxootigu iska xambaarsaday ka soo dhigay ee xaqa tusay oo xaqa ka hadlay ayaan aad iyo aad ugu hambaliyeynayaa oo shirkaanuna ku saabsanaa shirka iyo hambaliyeyntuna waa sii soconayaan Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya xal ha hesho xaldoon ha israaco xaldoon ha midoobo xaldoon ha la taageero baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan leeyahay geesiga dhulkiisa guushow horseeda geerida dishay geedka hago ku gabraaratada gumaystu ku duulo gaajada xumaanta geedkood hago marka caawa halkan waxaan soo nimid wixii ka dhacay muqdisho baarlamaanka go'aankay gaareen inaan ayidno talabaad in aan taariikhda jubbooyinka aan jeebka la gashan karin ayaan isugu nimid marka waa idin soo xirayaa shirka dadkii meesha isugu yimid aad iyo aad u mahadsan tihiin rag iyo dumar meelaha dheer ka kala yimid haddana waxaa inoo soo gabagabayn doono injineer sheekh cali ibraahim kulanka maanta oo isugu yimaadeen jaaliyadaha degan gobollada jubbooyinka jaaliyadaha jubbooyinka ee UK degan ayaa waxaa ka soo baxay go'aamadan waxay taageerayaan go'aankii baarlamaanka federaalka ah uu gaaray 6 bishii shanaad 6 bishii lixaad 2015 go'aankaas oo lagu kala diray baarlamaankii cadaalad darrada ku dhisnaa ee Jubbaland lagu tilmaamay Jubbaland talabaad waxaan u soo jeedinaynaa in inta ka dhiman ee arrimaha dastuurka iyo constitution ku qoran in la dhammaystiro si uu u dhaqan galo go'aankaas waxaan ku talinaynaa baarlamaankii la kala diray iyo dawladdii markaa dawlad goboleedka markaa isku tilmaamayso annaga aan ictiraafsanayn ee Jubbaland inay u hoggaansamaan go'aankaas la gaaray oo aan u bixinay go'aankii nabadda oo ay qaataan sababtoo ah waxaa ku jirta nabadda iyo wada noolaashada dadka deegaanka sidoo kale bulshada caalamka oo iyagu horeeyaan Mareykanka Ingiriiska wadamada Yurub oo dhan wadamada deriska IGAD jaamacadda Carabta iyo wadamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya kulligood waxaan ugu baaqaynaa in ay go'aankaas ay taageeraan go'aankuna waxa uu dan u yahay nabadda iyo wada noolaashaha dadka deegaanka jubbooyinka waa mahadsantiin